booliiska magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway ayaa ku baxay sawaxan xooggan iyo dagaal laga soo sheegay xaafadaha bari ee magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway. Booliiska ayaa markii ay gaareen guri ka mid ah guryaha ku yaalo bariga magaalada Oslo waxa ay kula kulmeen qof meyd ah oo guriga dhex yaalo iyo sidoo kale qof kale oo ay ku tuhmeen in uu yahay dilaaga oo ku sugan guriga. Waxa uuna sheegay booliiska in ay soo qabteen qofkii guriga ku sugnaa haddana ay baaritaan ku hayaan, waxayna xaqiijiyeen in qofka kale lagu dilay guriga oo uu ahaa meyd. Taliyaha howlgallada booliiska magaalada Oslo Bjørn Gunnar ayaa ku waramayo in ay ku baxeen weliba si degdeg ah ay rondooyin ku gaareen kadib markii la xaqiijiyay oo loo soo sheegay booliiska in guri ka mid ah guryaha ku yaalo bariga magaalada Oslo uu ka jiro sawaxan, qayle iyo dagaal aad u xooggan oo guri gaar ah ka dhacayo. Wuxuuna sheegay markii ay guriga tageen in ay ugu tageen qof meyd ah oo guriga dhex yaala iyo sidoo kale qof kale, qofkaasoo ay u soo qabteen kiiskan kuna tuhmayaan booliiska in uu yahay qofka ka dambeeyay dilka. Booliiska ayaa sheegay inaysan ilaa iyo hadda faahfaahin iyo macluumaad dheeri ah aysan ka hayn waxa meesha ka dhacay iyo sida ay u dhaceen, waxayna sheegeen in ay hadda ka hayaan baaritaano iyo dabagal xooggan oo ku saabsan falkan dilka ah ee ka dhacay gurigan. Waxayna booliisku intaa ku darayaan inaysan hadda malahoodu ku jirin in ay dad kale ku lug lahaayeen dilkan ka dhacay guriga oo ay u soo qabteen qofkan ku sugnaa guriga. Wuxuuna sheegay taliyaha howlgallada booliiska Bjørn Gunnar in qofka loo soo qabtay uu yahay 20 jirka oo lagu tuhmayo in uu ka dambeeyay dilkan loo geystay qofkan ku sugnaa gurigan ku yaalo bariga magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway. Dilalka iyo sidoo kale dhacdooyinka argagaxa leh ee dhibka la isku geysanayo ayaa ku sii badanaya magaalooyin badan oo ay ugu horeyso caasimadda waddanka Norway oo Oslo, halkaasoo booliiska iyo hay'adaha kala duwanba ay la tacaalayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen ama ay uga daba tagi lahaayeen. Halka warka kiisa ugu doorkoran uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.